injineer Maxamed Faarax Aadan Wasirkii Hore ee kalumaysiga maamulka Puntlan oo dhawaan magaalada Buuhoodle kaga dhawaaqay inuu u taagan yahay qabashada Jagada madaxweynaha maamulka Khaatumo oo maanta Waraysi TV-ga caalamiga ee Somsad ayaa waxa uu kaga warbixiyay sababaha ku kalifay inuu isu taago jagadaasi. waxa uu sheegay in maalmaha soo socda uu ku wajahan yahay magaalada caasimadda Khaatumo ee Taleex isaga iyo ergooyin ka socda gobolka Cayni. wadigii ogaa maamul baa la dhisay maamulkaasi wuxuu ka caakufaba waxa la isla qaatay xilligan in mar kale fikradii la ururiyo waayo aragnimadii laga dhaxlay maamulkii hore iyo waxyaalihii ka hor yimidna laga faa'iideysto dawlad cusub oo Khaatumo isteed Soomaaliya la yiraahdo aan gooni goosad ahayn ee Soomaaliya in la dhisto meeshii markii hore madaxweynayaashu 1 iyo 2 iyo 3 ay ka ahaayeen hal madaxweyne oo tayo leh in la samaysto ayaa la go'aansaday. shirkiina waa la tagayaa Khaatumo la isugu tagayaa Taleex baa la isugu tagayaa iminka ergooyinka intoodii badneed waabay si horumareen way jiraan intii kalena saanu ka warhayno ilaa 9 xubnood baan hadda ka warhaynaayo North America wada socdo oo tigidadii u go'an yihiin Ingiriiska waa laga soo socdaa Yurub oo dhan Carab oo dhan waa laga soo socdaa diyaar garowga faraha badan ee lagu jiro iyo sida aan u dareemay in dadku maanta xiiseynayaan hawsha in ay wax ka bedelaan ayaa waxa igu dhalatay oo ii muuqatay inaan arrintu sidii hore ahayn in la doonayo in la kordhiyo khibradii hore ee la soo marinay laga faa'iideysto loona baahan yahay hoggaan talo taas ay igu dhalisay markaa bal haddii aan isu sharaxo inaan hoggaankaas noqdo haddii dadku i doorto waxay doonayaan maanta dadku in si baar leh oo xoog leh loo taga Taleex oo looga qayb galo oo fikirka iyo awoodda iyo dhaqaalaha iyo xoogaba la midayo waan u jeedaayo arrimo amni iyo arrimo abaareed iyo roob la'aantii waxyaalahaas dib loo riday hadda laakiin diyaar baan khaasatan waliba anigu the coming few days waxaan rabaa hadii alla ka dhaw inaan isii qadimo oo Taleex siito waa tahay waxa hadda magaalada Buuhoodle ku sugan xubno ka socda maamulka Somaliland oo iyagu muddooyinka u dambeeyay joogay magaalada Buuhoodle gaar ahaan wasiirka caafimaadka Somaliland baliyada maxaad ka leedahay arrintaas la wasiirka caafimaadka ee Somaliland waa wasiir reer Buuhoodle oo dadkan u dhashay oo waliba ahaa ninkii u horeeyay isu xilqaamay inuu isu taago gudoomiyaha SSC nasiib darro hawshaasi mar dhaxay way catay Somaliland buu ku biiray laba wasiir iyo buu soo maray oo kala duwan maanta in xilligan oo abaara jiraan oo dadku tashaday oo uu doonay maamul isagu leeyahay inuu dhisto inuu soo dhex istaago oo halkan rabsho ka abuuro oo nin baa yidhi hebel caana iguma miri jirin badoorshaan baa kaga dhacay marba geed hoosti intuu istaago uu yiraahdo dhagax baan dhigaya caafimaad baan sameynaya oo ma kaaga baranay oo maamulka ma uga baranay waxaan leeyahay arrintaas in la carqaladeeyo shirkaas baa la yimi safarkiisa iyo safarka iminka lagu joogo hol iyo kii Taleex lagu qabsaday iyo kii kale ee seeragoyska ahaa ee laas qorayo waxa soo dhan waa xiriira waa safar xiriira midna waan oran lahaa dalku waa dalkaagi laga amal leh laakiin fakaraad leedahay aad xambaarsan oo kale waa tahay qorshaha halkan ku yimid maxaad soo kartaa ka Maxamed ahaan la qorshaha halkan uu ku yimid way iska caddahay koowaad waxay in dadka khalkhal la galiyo amniga la baabi'iyo oo dadku intay isbaabulaan ay ka hortagaan isna wax xabad bilaabo oo 25 gaari aan ognahay oo geedahan fooda ku soo hayo og yacaynama iyo uu raa xabad bay igu socotee hal ay soo gaaro oo dadka la soo weeraro lagu soo celiyo dhibaatadii hore talabaad haday taasi hirgeli weyday oo dadka caqligiisa ay mideen oo yiraahdeen maanta xabad uma baahanin hal la daayo waa wiilkeennii hayno yimaado aynu wareysano waxa ku xigta 18 May oo ah maalintii maamulkaasi uu ku dhawaaqay inuu gooni isu taagay in halkan looga xafladeeyo xaqiiqo way 18 midna ka hirgelmaysa arrintaas waayo 18 goboladan Khaatumo waxay qabsadaan waxay u dabaaldegaan maalintii feedhowrka maalintii nadaafadda maalintii qashin uruurinta ee gobolada Khaatumo bay u dabaaldegoodaaba jiiraya cidii isku dayday wax kale la keeno laakiin waxaan ka horeynaa imaka 14 iyo 15 in la doonayo in guri gudihii dhalinyaro lagu yeero hadda calamaha Hargeysa iyo Burco laga soo tolaya oo la rabo in dalka la keeno oo la yiraahdo xaflad halka laga qabtay 14 iyo 15 la sameeyo meel la iska dhigto clipka kadibna habeenka 16 la soo daayo taasina arrin suuragal ah maaha waa ognahay isagana waxaan leenahay arrintaas way dhanka kale waxa uu sheegay inuu xiriir ka dhaxeeyo xagla toosiyay iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Cabdixakiin Cabdilaahi Cumar
Puntlan Oo yogtahay Somaliland oo yogtahay markii uu Cabdixakiin madaxweynaha وبكل حرمة madaxweyne ku-xigeenka Puntland markuu musharax ahaa dhaqaalaha waxa bixinaya xag la toosiyay Somaliland oo yogtahay hay'adaha lacagaha bixiyo dhanna way og yihiin ama ha noqdaan saadka ama ha noqdaan amal ama ha noqdaan daafir taas kala rabay lacagta campaign isaga bixinay haddana waxaanu ka warhaynaa iyadoo gola in loo yeeray oo la yiri kaalay oo madaxweyne ku-xigeenka iyo ragga ku xeeran ay u yeedheen oo yiraahdeen Cali Khalifa magaalada soo galay kaalay oo kacay taas iska kaleer haddana waxa ag fadhiya iyo inta uu tagtay iyo inta la joogtaaba waxay u badayeen raggii madaxweyne ku-xigeenka oo ahaa taageerada iyo gaadiidkii lagu soo dhaweeyay iyo hubka iyo wax oo dhaniba kaleer bay taas iska Puntland way ogtahay Somaliland way ogtahay adduunka dhan way ogyahay inay yihiin laba xubnood oo laba maamul ku kala jira oo sidii xaafadeed u shaqeynaya taas waa iska kaleer ugu dambeyntii ayaa waxa uu si weyn u soo dhaweeyay mooshinka ka dhanka ah Xasan Sheekh Maxamuud ee xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka wadaan magaalada Muqdisho وبكل حرمة وان ugu bogaadinaya waa ku amaanaya xildhibaanada Soomaaliya inay ka duwanaadaan kuwii hore maanta oo ay saxaan wixii qaladaha ee u muuqday madaxweynaha iyaga doortay haddii ay doorteen haddii ballan qaadadii 6 tiiraha iyo kuwii ka yaryara iyo kuwii ka dambeeyay ballan qaadada hadday muuqan waayeen meeshii iman waayeen in la yiraahdo ballantii waad ku feel garowday wax dunida ka Aadan Jaamac TV-ga caalamiga ee Somsad Puntlan.